waan idin salaamay khiyaarta ku xidhan channelka runta u kaalay waa Bashiir Muuse iyo casharadii runta u kaalay waxaynu ku guda jiray cashirka shanaad oo ku saabsan Ciise Masiix waa kuma marka waxaynu ku jiraa Ciise Masiix iyo islaamka sida islaamku u soo gudbiyay sida quraanku u soo gudbiyay ayaynu ku guda jiraa waxaynu horey u soo qaadanay cashirka shanaad qaybta koobaad suuratu maryama ayaynu soo qaadanay aayadaha 10 aayadooda ugu horeeya marka waxaynu soo maray in malak jibriil ilaahay maryama u diray oo ay tiriniyo hadda ilaahay taqaano iga fogow oo yiri waxaan ahay rasuul rabbi ku soo ka diray inaan wiil aan dambi lahayn ku siiyo marka wiilkii bay u wareysatay faxamaladhu ya markaas ay fooshi meel cilla ah faajaaha almakhadu ila jid'i nakhlati meel cilla ayay fooshi la aadayo geed timira ayay ku hoos dhashay marka way dhashay wiilkii geedkii baa mar u soo daadiyay wiilku way dhashay waxa la yiri marka fa ima tarayna min albashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallama alyawma insiyan maanta lagu deyn mahay haddaad wax bin aadan la kulanto waxa tira in lama hadlayo waan soo manahay ku dhibaa lagu yiri ya inni saa'imun 'an al-kalami inna lama hadlayo ku dheh haddaad maanta dad la kulanto marka fajaa'at bihi ila qawmiha tahmiluhu wiilkii iyadoo wadata ayay tulkii ula tagtay markaas aad loo magaranaysaa loo dhibay oo aad loo canaantay oo la yiri laqad ji'ti shay'an fariyan ya maryamu baa lagu yiri maryamay waxaanaad samaysay yani waxa weeyaan meesha waxa weeyaan gabadh bikra ah oo ilmo wadata waad arki karaysaa waad dareemi karaysaa bulshadaasina bulsho waxa ahayd sharqi oo reer bari ah bulshada reer bayga ana waa bulsho mixnadeedo sharafta waxa sharafta loo yaqaan sharaf al-irdi way ka dhintaan waxa weeyaan ilaa maantadan carabtu gabdhahooda u wareystay iyagoon guursanin aabayaashood iyo walaaladood baa gowraca intay keenta la tagaan ay afduubaan ayaa dila gabadha way dilaan يعني waa dambiyada ugu xun jaraa'im sharaf baa la dhahaa marka waxa weeyaan ilaa maantadan dhaqankaasi way baabi ilaayahay waxa weeyaan nimanka gabadha la dhashay ragga ma soo hor fadhiisan karaan gabadhoodii baa garcatay baa la oranay gabadhoodii baa garcatay oo xaraan qaatay oo tumatay oo nijaasowday waa nijaas wana marka ragba ma ahaba marka waxa jariimatu sharaf baa la dhahaa ilaa ay dilaan gabadhaas rag ma noqon karaan maxaa sharafta ragga gabadha cawradeeda geliyay waa adduunka dhan baa la yaabay Yurub iyo America ku dilaan gabdhaha maantadan ayaa lagu dilaa waxaan wadan Canada ka dhacday nin labadiisii gabdhood oo dhalay gowracay labadiiba dilay laba wiil oo cadaan ay la saaxiibeen marka jaraa'im sharaf baraga dhex aad bay ugu gabadha reer bari ahayd maryam reer bari ahayd marka iyadoo ilmo wadatay ula timid dadkii markaas ali ya maryam laqad ji'ti shay'an fariyan wax aan afka la soo marin karin ayaad samaysay bali ma kaana abuki imra'asu wa ma kaanat ummuki baqiya xageed ka keentay dhaqankan aabahana nin xun ma ahayn hooyadana naag xun ya galma xaraana samaysan ma ahayne dhaqankan iyo inaad ilmo xaraana uureysato dhasho xageed ka keentay bali wiil xagu ku abtirsadaa bali dhaqankani waalidka dad fiican bay ahaayeen marka arkaysa gabadha sida loo dhibay ma garanaysaa marka shaabugaas iyo yani ma garanaysaa in maryama saa loo dhibay quraanka alla gaara injiilka riwaayad kale oo aad u macaan oo taaka gooni ah ayaa ku qoran ya marka waxay tiri injiilka markii malku jibriil loo diray oo wiil baad dhalin doontaa oo Ciise Masiix baad u bixin doontaa oo nin weyn buu ahaan doonaa oo wiilka ka ugu sareeyaa loogu yeeri doonaa يا ودتكي سودن بيده كبدبادن waxay tiri aamin ilaahayo sidaa tiri ha ii noqoto masaarada waxay dhahaan rabbana yasma' min bu'ak saasay tiri lahjada wasaa ilaahay afkaaga ha ka maqlo way rabbana yasma' min bu'ak afkaaga ilaahay ha xaqiijiyo marka injiilka saasay ku tiri xagna waad arkaysaa sida loo galay gabadhii marka cashirkaas uu daba socdaa markay tiri cidna la hadli maayo la dhibay oo la canaantay فأشارت إليه يويل كفرت أقول في غير أنا وإذن الله المهيا كان لها الله مركز هذا لقى سيدرج يقول لي كيف نكلم من كان في المهدي سبيا المية روات أبرك كوسد هذا واد كسر ترتب نوجه جيس السابع مسك ما بقى كود من سيدانو المية رو هذا الرشاد أبرك كوسد ولا حلينا
markaasuu madaxa la soo baxay qur-aanku saasuu leeyahay ciise masiixi uu yidhi innii cabdullaahi wa rasuulihi marka cashirku weli ciise masiixi waa cabdullaahi wa rasuulihi yaynu ku jiraa innii cabdullaahi wa rasuulihi aataaniya alkitaaba wajacalanii nebiyan ilaa aakhir alaayaat hadda ku noqon mayno waa cashirkii hore markayaan ku xusuusinaya marka cashirka maantana kaasuu daba socdaa marka maxay leedahay bal ila soco وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما يهودا قرآن دولك كجيدا دولك سيبا مركي مدينة نبي محمد سو هاجروداي او بني قينقاع iyo بني قريظة iyo بني نذير صدخدي قبيله ee waaweynaa مدينة deganaa iyo nabi maxamed iyo muslimiintii ay heshiin waayeen markii hore waa la heshiiyay saxiifatul madiina ayaa la qoray uu nabigu qoray oo yiri madiina dadkeedu waa hal qolo waxa weeyaan cadowgana hal gacan bay ka yihiin yaani waxa la dhahaa culimada kuliyadaha qaanuunka ee wadamada carabta iyo muslimka waxay ahayd saxiifa dastuuriya tii ugu horeysay dastuurka ugu horeeyay la qoray nabi maxamed baa qoray bay dhahan marka carabtii muslimka ahayd iyo kuwii aan muslimka ahayn iyo yahuudi ayaa waxa la yahay shacab weeyaan ya cadowgoodan meel bay uga soo wada jeedaan waana isku xuquuq waana isku waajibaad marka heshiis noocaas la galay muslimiintu marka waxay leeyihiin dhinacii yahuudi waxba kama hayno waxa weeyaan dadka waxa weeyaan cadaalad bal raba in loo arinta loo tanaawulo muslimiintu waxay dhaheen oo siirada islaamku soo gudbisay yahuudu inay shirqool markaa sameeyeen ay ka baxeen heshiiskii oo qurayshtii cadowga ahayd ee nabiga soo iriday ay heshiis la galeen oo nabiga la shirqoolay oo cabdullaahi ibn salool oo munaafiq ahaayo isaguna u sharaxana inuu sultaan noqdo caanaha isku daadiyo ree aws iyo khasraj reer awsa iyo yahuudu gacan saar la lahaayeen baa layidhi oo maalintii uxud ciidankii la baxay 300 oo nin la baxay meeshii la rabay inuu nabiga iyo ciidankiisa ka ilaaliyo dadna uu ka soo galay Khalid bin Waliid oo markaa gaal ahaa sida ay siiradu leedahay oo ciidamada muslimka uu dhabar ka jabiyay ilaa 7 la dilay nabigana foolka laga jabiyay markay saddexda qabiil ay ka bixin heshiiskii waa sida islaamku leeyahay oo siirada islaamku leedahay nabigu amar buu ku soo rogay in laga raro madiina yahuuda wakiida wixii dhacay waan garanaynaa ku noqon mayno wakii la gumaaday yahuudi oo raggoodii dhan leeyli kurayga xataa bisqin ha laga eego haday bisqin ka soo baxdo cawrada haday tama ka soo baxaan ha la dilo illa teenage 14 jir illa iyo 9 jir waxa laala wixii rag ahaa cagta la mariyay naagihii caruurtiina waa la bilqaysto sabaaya bay noqdeen safiya bint xuyay oo aabaheed sultaan ahaa oo aroos ahayd ba ku jirtay oo marka nabigu qaatay oo xaas ka dhigtay marka waa qiso kale ku noqon mayna taas marka yahuuda khilaafka kadib qibladii buu bedelay nabigu qibladii buu ka guuray وقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام عيالي قبلة يدا حتى النبي يقول قبلة يهود قدس أما يروسالم ودب صديبي القرآن يقول قد نرى تقلب وجهك إلى قبلة ما يهود ما يقبل دشيت سقوله أي القرآن كساس ليه قد نرى تقلب وجهك في السماء أديكو السماء يجي وحي الدوندونا أيانك عرقني فلنولينك قبلة ترضاها قبلة أدرال كتاي وقبلة تلكا ويانا ومكة يان كوري تشينينا فولي وجهك شطر المسجد الحرامي مكة وجهتسو كجهتسو يهود إيو قبلة دوضوا مكة لو تشيدي ومكة غور بيت الأوثان وصدح بقول اللحظة سنم أيالان وأنت عن لقب سنين النبي وسن طاهرين با سيدا إسلام كلية يدو سنم يالك بوحان يا لو تشيد صدق وراسا سيرة المسلم وحيلا هذا ما ربنا مسلمين يجوا سفر كوا ولي قبلة القدس وتكنا صلاة كتيرة يا لورنا ور قبلة ولا بدل مكان لو تشيد صدق مركز يسدا وريجين يقولي صلاة كتيرة مركز تاس واقصة كلا مركز يهودي هشيس كلا ها آد كقرآن كلاجو أمانة مركي هره آد بالله أمانة مركي هره تقال بالله قاعد ومركي يجي النبي يقول حرير كود آد بحماضي مركاسا قرآن كالو كرباشي مركا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بالي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ذنبك إسكمين إن هي كرباش وابلنا على ذي وحالونا على ذي
على لسان داود نبي داود أفكيس عيسى بن قرما نبي داود نبي عيسى قرما يهود هبارين ما لا يكون قرنتاي مجرتو نبي داود عيدا كجعلهن مجرتو عيسى مسيحنا من هبارين ها عيسى مسيحنا ميل ويهود كو هبارين مجرتو هلا soo caday arrimahaas waxay jira markaan quraanka iyo bible-ka aanu gaadhno yeenu arrimaha aad u faahfaahin doonaa waxa jira waxyaabo badan oo quraanku ku eedeeyay yahuuda iyo kristanka oo haba yaraatay aan nas loo haynin oo cadayn loo haynin marka bible-ka la eego tana in yahuuda la habaaray waa kamid oo ilaahay nacaladay oo habaaray ilaahay marka sidee buu u habaaray isagoo yiri wala qad ikhtarnaahum ala ilmin ala alalamin ya ولقد اخترناهم على علم وفضلناهم على العالمين آيات قرآن ويان علم يا أقوم بانو يهود كو دورناي وفضلناهم على العالمين دتك دم بانو كسر يسيني وآتنا منهم النبوة والكتابة أي آيات كلا ده نبي النمو يا كتاب يا دولة نمنا وانو سيني وآتنا منهم النبوة الحكمة والنبوة دولة يا نبي النمو وان سيني مركا إلهي sida islaamka iyo quraanku inoo soo gudbinayo he changed his mind wuu isbedelay wuu habaaraba qoladii shalay uu lahaa cilmi baan ku dooranay oo dadku dhammaan ka fadilday ayaa la habaaray oo la nacdalay oo la yiri celiyay meesha lagu arko oo dhiigoodii iyo hantidoodii iyo cirdigoodii baa la xalaashaday oo ilaa maantada masaajidda laga habaaraa allahumma ahlika alyahuuda jamca kasta ilaa oo dawladdii Mareykanka markii September 11 ay ka cabato مناهج السعودية يوهابية أي يهود كوريان بهلا هلا بدلبا محمد بن سلمان الشكدي بهذا وضع وحده بوجو تشيبا مركا يانا شكدا هلكا يانا كو دheeraanina يهودا la soo canaananayo la soo watay oo quraanku soo karbaashay markaas la yiri وبكفرهم gaalnimadoodii ayaan ku nacladay baali weeyaan وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما gaalnimadoodii iyo inay Maryam ku been abuurteen oo ay dhaheen naag xun baa tahay oo ilmahan xaraam baad ku dhashay ibn xaraam weeyaan ilmahani ay dhaheen ayaan yahuud ku habaaray oo ku nacladalay marka Maryamana way caayeen oo sida aayadii hore ay soo sheegtay ma kaana abuuki imra'asu balaaya kugu dhacday baa leeyahay meesha laga fahmayaa meesha kuma qorre naag xun baa tahay baa lagu yiri dhaqankan dhilaysiga ah ee ina galma xaraan la sameeyay xagad ka keentaa leeyahay xagu ka abtirsadaa ma kaana abuuki imra'asu wa ma kaanat ummuki baqiya waalid fiican baad ka dhalatay aabahana nin wanaagsan boo hooyadana naag xun ma ahayne naag xun meelaha yaala cid walba ay marta ma ahayne xagad ka keentaa leeyahay ilmahan ya marka waxaan ku habaaray oo yahuud ku nacdalay gaalnimadoodii iyo وقولهم على مريم بهتانا عظيما مريم إني حق الرؤية بين كو أفلقاديين ودهن المحارانة آيات سدا انت اللي ما تشوك سنين وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ماشان آيات وقصع عدوها هالكاس ويوحين كتير عيسى ورسولك إلهي صماها إني عبد الله ورسوله يسوي سورة مريم هل كان محي لا وقولهم إيا هذا الكودي شيء شدودي بنت أحد أي دهين يهود إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله عيسى مسيحي إن مريم أها أو رسولك إلهي أها أنا قاد لي أي دهين أو بين أبوره ولبا أيانو يهود كهبار يكون على ذلك مركا وما قتلوه وما صلبوه ها أنكو آخر آيات مركا أنكو عليو وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما مركا قصة عيسى المسيح سلبي جيسى مركا أينو قادنو يا أينو أرنتاز آد وخلد دونا هذا البضان بمشى كتيرة ومسألة خلافية هو آد أبان إن الله افتيميو لكن حتى هل كان حان وسعدا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله رسولك إلهي ويان عيسى سدع آيات عدينس وسورة النساء بقول شني كنتن بقول إيو كنتن يسقال سورة النساء ويان يلسعوا
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. marka aayaddu waxay daba socotaa aayaddani waxay kusoo degtay التوحيد والتثليث markaynu ka hadlayno cashirkii afraad ku iman doonaa ayaan kaga hadlay التوحيد والتثليث marka cashirka waa soo dhigi doonaa youtube-ka. marka ciise masiix ayaa lagu muransanaa waa wiilki ilaahay waa ilaahay waa rasuulullah. marka qur-aanku tacriif jaamica oo kaamila ayuu u sameeyey oo uu qaws geliyey ama baraag. maxaa la yidhi inama almasiix ciise bna maryama buuqiinaa batay khilaafkiina masiixa ciise ahe ina maryamo uhu waxaa weeyaan oo keli a weeyi rasuulallaahi. marka maanta cashirkaygu waa rasuulallaahi ya wa kalimatu alqaaha ilaa maryama wa ruuxun minhu. cashiro kale oo badan weeyaan tacriifka masiixu. marka maanta waxaan ku joognaa rasuulallaahi. marka ila soco fadlan rasuulallaahi baan ku joognaa. inamaa ana cabdullaahi warasuulihi وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه. مركا وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه ما لك لا أيان كجهل دونا 10 صوص أيان كجهل دونا. وسورة النساء آية بقولية تبعتن أما تبعتني كو نصدها قرآن بكل دوينين. مركا آية وحي aad uga hadashay tawxiidka iyo tathliithka. marka cashirka afraad baad kaga dhargaysaa wuu ku iman doonaa maanta ma dhexgelaya halkaas. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. waxaanu ka dabageynay rasuuladii hore waqafaynaa qafaa waxaa dhahaa qadaadka. waxaanu ka dabageynay oonu xagga qadaadka ka daba keennay weeye. markay socdeen iyagu sii jeedsadeen oo aakhare aadeen waxaanu ka daba keennay weeyaan. qafaynaa alqafa waa qadaad biciisa bna maryama ciise ina maryamo ahaa ya musadiqan limaa bayna yadayhi min atawraati isaga oo tawreed rumaysan oo taageersan. وعيسى مسيح التوراة ورميي أو تاجري آياتها حدود كلها أيو نسخي وآياته دلكي عاد كاي قلب سنة شرع إنه مسكوسو دقي كتاب كلاويين هو ذا نسخي وحيل واد مقشين إن اللي يري عدو جاء النعبة وصاحب كانت شعلو لكن أنا وحان إذن كلها هاي عدو جينا شعل هذا أو كوا إذن نعب الدعية أو كوا إذن هبارة والسما فلا وكوا جريها إذن كسارة يا injiilka matayos cutubka lixaad. marka aayadaha kale ayuu nasakhay qur-aanku tawreed oo sideedii ah oo aayadihii la nasakhayna ku qoran yihiin buu sidoodii u soo celiyay intuu injiilka ka booday. injiilka dhowr meelood oo dood ahoo muran ah mooyaane oo ala cimraan iyo maa'ide iyo ku yimid mooyaane qur-aanku injiilka kama hadlo. waaba laga boodayba tawreed oo sideedii ah ayaa la soo celiyey. waa tan le إن سورة الجن قصدي وحالي الجن كأيا النبي القرآن كأخريها يهبينك دقيستي مركا وحيدا إنا سمعنا قرآنا أنزل من بعد موسى وحان مقلي قرآن نبي موسى كتب أو إنجيلك من بعد موسى وعيسى لم أرنين. إنا سمعنا قرآنا أنزل من بعد موسى فآمنا به قرآن نبي موسى كتب سودقي أيان مقلي وان رميني فيدهن مركا إنجيلك إيو دلقات كيسي إيو عفس كيسي wixii dhan meesha kuma jiraan quraanku kuma jiraan. tawreed oo safeteedii wadata baa la soo celiyay ya marka wad arkaysaa. marka ciise masiix baan ka dabageynay waxaanu siinay waatayna waqafayna ala aatharihim biisa ibn maryama musaddiq lima bayna yadayhi min at-tawrat wa ataynahu al-injila. injil ayaanu siinay ciise masiix fihi hudan wa nurun wa maw'idatan lil muttaqin. injil hanuun iyo nuur oo wacdi u kuwa ilaahay ka cabsada ayaan ciise masiix siinay ayuu quraanku leeyahay.
ya marka quraanku wuxuu aaminsan yahay oo sida islaamku u soo gudbiyay nabi ciise in kitaab injiil la dhaho samada lagaga soo dejiyay wa aataynaahu al-injiila injiil baanu siinay laakiin masiixiyiintu ma aaminsana kitaab injiil yiraahdo samada laga soo dejiyay waxay aaminsan yihiin ciise masiix inuu ahaa injiilka ereyga injiil waa af Greek waxa la dhahaa evangel marka evangel af carabi waxay noqonaysaa injiil af Soomaali waxay noqonaysaa warka wanaagsan marka waa bishaara weeyaan al-bishaara الخبر السار الافراح الاخبار المفرحه وحاسو دنبا انجيل لا نقونيا marka magaca bashiir halkaas ka timid anbiyada waa ka bashiirin wa nadiiran suratu ahzab mahad inna arsalnaka rahmatan lil alamin bashiirin wa nadiiran wa da'iyan ila allah bi idnihi wa sirajan muniran marka bashiir magacaas halkaas ka yimid waa kii warka wanaagsan dadka u sheegay ee bishaarada sheegay weey عربت المسيحيين وحي إنجيلك عوانة إنجيلك وحي قرن بشير متى بشير لوقا بشير يوحنا بيدهان مركا بشير وحوين هالكاس كيين مقعي وهالكاس كو أثر كو أبترسلا مركا وكي ورك وناكسن شيء وعن فيليا أنا ور وناكسن إدين شيء وشنال كرنت أوكالي عد ور وناكسن كهليسان إن المسيحيين مسيحية دا إسلام كتوش كو إفتيميو قارهان مسيحية دا بوشيغا لغا قاضي مقرنيسا سawirka khaldan laga haysto inaan tooshka ku iftiimiyo xiriirka ay leedahay islaamka iyo eedaha loo jeedinayo ma khalad baa masaxba inaan tooshka kugu iftiimiyo taas way runta kale saasan ugu magacdaray janaalka markaan ku socday wal yahkum ahlul injili bima anzala Allah balaydi ahlul injil ku haysku xukumaan wana ahkaamta uu ilaahay bima anzala Allah fihi ahkaamta uu ilaahay injilka ku soo dejiyay وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله في القرآن لما أرنين مركا بما أنزل الله فيه بالي إنجيل كايسكو حكمان مركا وحوين قرآن إنجيل ما تفرقان بالغو نسخي تو داسو halkaas inoogu iman doontaa waa dood dheer oo ku saabsan marka quraanka iyo bible-ka gaadhno yay inoo iman doontaa bible-ku wali miyuu shaqeeyaa mise waa la bedelay miyaa la taxriifiyay miyaa la qaaday miyaa la nasakhay doodo badan oo noocaas ah jira markaan kitaabka gaadhnay inoogu iman doontaa marka hadda xilligeedii lama joogo ila soco marka waxa weeyaan suuratu al-maa'ida 45 weey ciise masiix baanu ka daba geynay wa aateenaahu al-injiila yani waa rasuul oo kitaab injiil dhaho ayaanu siinay ayaa aayadu leedahay ما المسيح عيسى ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله عيسى المسيح إن مريم أهو معها وحكله وحنا أي شيء يعني وحنا استفهام ضمني marka dood baa socota muslimka iyo kristanka ciise masiix waay waa wiilka ilaahay waxa weeyaan waa ilaahay oo jir qaato ismuuji may waa rasuulka ilaahay dood baa socotay iyo guux quraanku marka wuxuu yiri mal masiix ciise ibn maryam ciise masiix wax kale ma aha waxa weeyaan rasuulun qad khalad min qablihi rusul rasuul lamid ah kuwii ka horeeyay waxaan ay akhriyeen waxba kama jiraan weeyaan iyaga ka badbadinay waxay la mid tahay yaa ahlul kitaab la taqulu fi diinikum wala taqulu ala allahi illa alhaq inma almasih labada aayadood way isku dhow yihiin yani waxa weeyaan la taqulu fi diinikum marka leeyahay waxa weeyaan diintina ka badbadinay ma ciise masiix wax aan ahayn baad ka dhigaysiin ilaahayna wax uusan ahayn baad ku sheegaysiin wiil buu yeeshay iyo waxaas joojiya leeyahay oo tathliidka joojiya marka waxa weeyaan aqeedada masiixiyada iyo masiixiga shakhsiyadiisa divinity-giisa lahuudkiisa iyo naasuudkiisa dood ku saabsan ayaa meesha ku jirta marka waxa weeyaan masiix oo kaliya rasuulun qad khalad min qablihi laakiin aayadana waxay moodaa inay ka hor imanayso wa kalimatu alqaaha ila maryama wa ruuxun minhu waayo aayadaasi kelimada ilaahay iyo ruuxa ilaahay rasuul kaliya ma noqonayso ereyga ilaahay rasuul uu ka wan yahay rasuulka waxaa rasuul ka dhigay ereyga ilaahay marka aayadan iyo aayadda marka isu geyso waxaad moodaa xogaa contradiction ama khilaaf inuu u dhaxeeyo way ciise masiix rasuul kaliya ma aha inma almasiix ciise ibn maryam rasuulullah inta kaliya lama oran wa kalimatu alqaaha ila maryam wa ruuxun minhu bali marka taariifka ciise masiix waan ku sii socon doonaa oo meesha hadal badan baa ku jira inma almasiix ciise ibn maryam illa rasuulun qad khalad min qablihi rusul wa rasuul lam yakun ka horeeyay inna abdallahi wa rasuulihi آتاني الكتاب وجعلني نبيا وصل سعوتي يا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى من مريم رسول الله مركا وكا ساء حسوس ساء ولا سعو مركا وكلمة ألقاها إلى مريم الروح منه
ciisaha kale ee waxa weeyaan wuu inoo iman doonaa oo isaguna adilo badan buu wataa iyo caddaymo badan oo ku filan oo xoog badan aan ku socdo waxa weeyaan waa suuratu maa'ida aayadda 74 ما المسيح عيسى بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل وأمه صديقة يدنا ويفعنيت إسلام في عم بهيت خير الله سيو وأمه صديقة هذا وقت نواب الله وحي النبيات بهيت سماه نبيات بهيت مريم النبيات بهيت محا النبي كدغ يملك جليل بالله سو دري والو سو ور وناغسن بالله كيني نبي محمد كدغ ملك جليل بالله سو دري ور وناغسن وكان القرآن كسو دجيي سدا اسلام ku qabo عدي النبي بالكتير الله صادر فرين إلهي أتماد والنبي نبي وامحي نبئة وكيل الله ورمي وي غيب كالله ورمي وحن تتكل كله الكرين فرين إلهي كتمت كيل الله شيء وي والنبي نبئة به الأنباء بدن الأخبار عف عربي مركب كاس وأمه صديقة هو يدين ويفعنيد كان يأكلان الطعام عنتدي عنشرين لبا إله ما ينهين وي مش عنتدي عنشرين حوين لبا إله ما ينهين بشر بقى هنا انت cuntada cunaan bay saxaroon jireen musqusha gali jireen marka saas loo jeedaa aan ku socdo marka waxa weyn al-maa'ida 74 وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون سورة المائدة آية بقول إيو طبعا ونسخدها قارنا بقول يكوي طبعا بقران حسوس نبي محمد مركي إلهي حواريين وحيودي حواريين نبي عيسى مركي لو وحيودي إله إسلام كقرآن كسوجد بيه وحيودي والله الله حواريين نبي عيسى هيا وأنت سوارن عجيب صمها وهي إنجيلك وحكوا قرآن إن عيسى مسيح لبيه طبعا ودورتي أو رسول الله كرجعي مسلمين وحيدين مايا وروح وفاق وين وحجر معها إلهي سوق وحيودا نبي عيسى أم نبيها كون حربة هاي عادية رسول الله يوم وحن كريستيان كقرقرتي وحن وحجر معها قرآن كيف يكون قرآن تاعي إن لو وحيودي واتنكلف ميورنشرين وإذا أوحيت إلى الحواريين حواريين تبع الله اللي بإلهي إله إسلامكم ومحوكوا يدي أن آمنوا بي وبرسولي أنا يا رسول كي عيسى المسيح أبا الرمية قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إيه بوان رمينا إيه وان رمينا إيه مرخاتك أهو يا إن حواريين تلو وحيودي قرآن كي قرآن تهي سورة ياسين ويكو قرآن تهي رسول الله تري ومركي الله لا تري فعززناهم بثالث مال كلام كجاه لنا بس تحاد بالله قدره لو دري مفسرين تدو واحد هو رسول عيسى المسيح وحواري عيسى بيدهان حواري عيسى سيدهان مركا محيدين أيضا محيل هذا أن آمنوا بي وبالرسول رسول كان محمد ما كان نبي محمد ما هو النبي عيسى سيد القرآن كله وإذا وحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبالرسول رسول كي عيسى أنا الرمية حواريين ترى الله يا حرت أصحاب النبي محمد معها قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون المائدة بقولية طبعا أما بقولية كبيرة طبعا النسخة لها غير وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم وحانا هي حسب مركي النبي عيسى كيري ريب بني إسرائيل يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم وحانا رسولك إلهي وإيب إيدين سوكين دري مصدقا لما بين يدي من التوراة ما تاغير سنة وما بيننا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد رسول يقدم إيمان دونه أحمد لدهنا وان إذن كب شعرين يا ولا سعف آمين الله أكبر بالجيل هاي إنشيل كمركي لقى بعري أحمد ما بكو تشربه بلا يا دعاء مكاسل يا ور يهودي حاقدين هذا ماشي كساري ولا ندرس ولا تعريفي نبي محمد بالله كساري إنشيلك نبي مركا إنشيلك فرت لو في قول دغخييو oo la yiraahdo waa la farafreeyo waa la taxriifiyay nabi maxamed baa laga waayay sababta waa quraanku waa sheegasho hal dhinaca ya macdira ya jamaa waa sheegasho quraanku sheegtay weeyaan injiilka lagu ma hayo nabi ahmed dhaho nabi maxamed dhaho midna kuma jiro
ولا تحريفية كي سحدا والله حيوك الله ما كي قرنجي كو هذا قريبة يالا سجوا أفك كو قرن غريقة يا قرنجي كوبات ميلادك قرنجي كوبات ميلادك وإمس النبي محمد كهريا لح بقول صنو مركي النبي محمد مدينة شوقي أو كريستيان يهود اللي دودي إنجيلكو سحبوا هوية اللي والنبي محمد نو بحويهم وقع يا وقع وحوين توريدنا ويتالي وينوصل صعتها مركا كتابك بايبل كميال بدلية ميال تحريفية مركاس دودا وسالكاس أنا وإما دونتاي ويالي مركا حوين ولي كيد نبي محمد لقوا ما نقرين نبي أحمد دهن لقوا ما قرين مركا لقوا وين ولا دقحية وحالي إنجيل كان صح معها it's absolutely not right سببته النبي كم بتشربع مركا سببها إنجيل كاللورد على عيان مسلم كوا على عيان وحكم ذا إن آيات دنيو دلالة أو تحريف كهاللية لفظي تحريف معنوي لفظي يعني هنا تحريف معنوي كهاللية نوي كتيران يحرفوا يطلون الكتاب ثم يحرفونه آيات أورانية تي أخريان نسكة يعني معناها تحريفنا يعني تاس وامد طلعان النبي قبل الجواعي مركز اليوف نقدر كان صحابة معه كيس هذا ويلو ميانه وانقرت مركا أحمد بن قادياني بصوب حي ما قال هذا سدح بقولوا صنم يا الجماعة القاديانية مركز سوري نكل الشيء وأنا قويان رسولك إلهي معنا وذات كهندي جا تطبعاً بعد تاجر سن ما أنت وملايين الأحمدية مركا وسورة الصف آية السديدات إني رسول الله إليكم مركا عيسى المسيح ورسولك إلهي عاشر كأنه ما أنت سالكاس كوساب سنة عيسى المسيح إنه يا رسولك إلهي لكن أنت أنشكدهم كوكبنا ويسيس عندهم تا رسول إلهي إنه كبدن يهي إنه وإنه صوتا مركا سدا إيو اسم قل دم يسارك دم حيسله عاد بان الدين سلامية